دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامي أصحابتي خالقة halkan maanta waxaan rabaa inaan idinku wadaago jimcada iyo fadaa'isheeda. Jimcada iyo fadaa'isheeda aad ay u tiro badan tahay walaalayaal, waxaana ka mid ah xadiiskii Abu Hurayra oo ka wariyay radiyallahu anhu. wuxuu yidhi nabigu rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wa sallam maalin waxa uu khayr badan qorax soo baxdo yawmul jimca, maxaa yeelay waxay ugu khayr badan tahay waxaa la abuuray maalinkaas nebi aadam, waxaa la geliyay jannada, waxaa la geliyay maalin jimco, waxaa laga soo saaray maalin jimco. sidaas wuxuu oran nabiga calayhi salaatu wasalaam, khayru yawmin balacad calayhi shamsu yawmul jumca fiihi khuliqa aadam وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها يولي النبي عليه الصلاة والسلام. sidaas oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, inna min afdali ayyaamikum, maalmihiina waxa ugu fadli badan yowmul jimca, maalinka jimca ayaa ugu fadli badan. nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinka jimca waxaa la isfaray in saligiisa la badiyo, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi يوم فأكثروا علي من صلاة فيه، فأكثروا بديع علي الصلاة فيه سلنت أدقوا سلنزان، فإن صلاتكم محايا ليس سلنتين معروضة ومن صوبان دقي عليه دشيسة. النبي عليه الصلاة والسلام حوريا صلاة دين ومن صوبان دقي أن أركي النبي عليه الصلاة والسلام وبوري النبي عليه الصلاة والسلام معنا كازم عينا وكسر. sidoo kale walaalayaal jimcada fadaa'isheeda waxaa ka mid ah in isku dhaafo dunuubta. waxaa ka mid ah xadiiskii laga wariyay Abu Hurayra, as-salawaatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wal-ramadaan mukaffirat ma bayna ijtinabati al-kabaa'ir. salaadaha shanta ay jimca ilaa jimca laga gaaro, soo ramadaan laga gaaro, waa isku dhaafaa wixii u dhaxeeya hadduu qof ka fogaado kabaa'irta. kabaa'irtana waxay u baahan tahay walaalayaal توبة يوباهن تاي. إلهي سيدو ليها بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. توبة يوباهن تاي marka walaalayaal maalinka jimca waxaa ka mid ah saacad ka mid ah oo qofka duceysanaya ducadiisa aan la soo celin. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalinka jimca waxaa ku dhex sugan saacad adoon la waafajino asoo taagan oo tukanaya hadduu ilaahay weydiisana ilaa acdaa ilaahay yahayfiina. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayaa, fiiha saacatun laa yuwaafiquhaa cabdun muslim وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. لم فيها وحكو أحسن ساعات عن الوافجين الضوء مثل ما أصوت تاغن أو دكانيا إلهي ويديسانيا إلا هبدو ويديست أضون كار ولا سياب. النبي عليه الصلاة والسلام ولا الوحل ويدي شأن الساعة الجمعة، معناه الجمعة ساعة ذي ذواتها. النبي عليه الصلاة والسلام فيه وأنت قد حيث إمامك إنت صفريسان إلا صلاة لا يذكر، معناه أنت قد بصعت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ولا المعلومة وحكم إن فضلك الوصل سلنتي سلفريا معايا ربي سبحانه وتعالى وحرمها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إلهي ملائكة جعلوا كسلنا أو كسلنا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا فيها أمر أصلي عليه يسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام أسوارك أسبورين حريب فأكثروا بضيع علي من صلاته في صلاة يسلمنا صلاته، فإن صلاتكم حيا الثلاثين معروضة ومن صوبا ولو بندقي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة نتصلينه يسلمتنا عليه مانك صلاة بندقيا. walaalayaal waxaan isku doorinaa inaan ku dadaalno saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa noo dhiman wax kaleeto ah qofka markuu masaajidka tago qaabka khudbada u dhageysanayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qofkii soo weysaqaadkiisa wanaajiya, jimcadan yimaada oo khudbada dhageysta aamusaa
وحالو دافع قفكاس ذنوبته uu dhaafaa maalinka jimcaha qofada la dhageystay waxa loo dhaafaa inta u dhaxeeya dunuubtiisa jimcaha ilaa jimcaha laga gaaro iyo waxa loo saaidina 3 maalmood 10 beri ayaa looga dhigayaa laakiin qof taabta ama telefoon ku falaada ama qarax qurux meesha ku falaada waa la qoy nabi alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma ata aljum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna aljum'ah wa siyad 3 ayyam man massa alhasa faqad laghaw li nabi alayhi salatu wasalaam wala la waxaan ku boorinina kuwii ku dadaala kana faa'iideysta inaan